ee lagu magacaabo Hani taasoo inkirtay carruurtii ay dhashay ee 8 ahaa iminkana 5 kamida ay nool yihiin iyo sidoo kale in uu qabay ninkan lagu magacaabo Cabdisalaan Dheere. Haddaba daawadayaal caddayn rasmi ah ayaa laga soo bandhigay gabadhan kadib markii la helay Facebook-ga ay isticmaasho kaas oo ay 10 sano ka hor ku soo daabacayday sawirada carruurteeda iyo sidoo kale ninkii qabay iminkana qabay ee xoogga looga haystay Cabdisalaan. Haddaba waxaan kula wadaagi doonaa cadeymahan kuwaasoo aan ka soo helnay gudaha profile-ka gabadhan oo ay ku baahin jirtay sawirada carruurteeda iyo ninkeeda. Haddaba daawadayaal inta aan kula wadaagin xogtaasi iyo sidoo kale xog iyo macluumaad dheeri ah waan ka helnay qaybo kamida qaraabada iyo ehelka u dhow gabadhan lagu magacaabo Hani. Haddaba xogtaas oo idil inta aan soo bandhigin muuqaalkan leegaray si uu baaha una gaaro bulshooyinka Soomaaliyeed sidoo kale nagu soo biir oo kamid noqo asxaabteena adigoo channelka subscribe dhahanaya ganbeel kana u furanaya.